الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. قصة تتاركا وإنه ولكو جرنو قيبتي أيغو قولي سنيين وإنن قادين قوبه يغا جبكو ذو كبلاب ميي وحينو كسو دحجرني دولة الأيوبية أما صلاح الدين الأيوبي رحمه الله دولة دي بلادنيدة وكتغي دبيتنا قوقودة في القنطي قيبها تراد بدن نغطي إيا مركا تتاركو سيدو ولا دقمي كل بميل وكدولي قولada kalena ay daawanaysay inta qoladaasi la cunayo ama la laynayo ay u fududaatay markaa hoolakaya ciidankiisii inay maalin walba koox ay weeraraan kooxaha kalena ay meeshooda joogaan. waxayna ugu dambeeyso inuu soo marnay maya farqiin magaaladii la odhan jiray ee dagaalka gashay al-Kamil Muhammad al-Ayyubi oo la jabiyay oo inuu magaaladaba xisaar baa lagu sameeyay dadkii wuu madhay gaajo iyo xanuun u madhay aakhirkii magaaladii bay soo galeen Muhammad al-Kamil bay soo qabteen dabeetana waxaynu nidhi tacdiib baa lagu dilay waa la toorjar gareeyay inta la xidhxidhay ayaa hilibkiisa la googooyay kolba in la cunsiiyey markii uu dambeeyeyna madaxay ka gooyeen dabeetana madaxiisii bay qaateen ilaa iyo magaalooyinkii iyo dhulkay sii marayeen oo dhan madaxii kaamil oo lagu sido waranka lagu sitaa lala marayay ilaa madaxiisii uu ku gabagaboobay inay Dimashq la galaan xalab iyo xamaa iyo xamas waxaasoo dhan waa la dhaafeen sidii madaxiisa loo siday dadka loogu bajinayay ayaa Muhammad al-Kamil al-Ayyubi madaxiisii waxa la geeyay Dimashq waxay culimada taariikh tilmaaman xataa Dimashq albaabka laga soo galiyay baab al-Faradis albaab la yiraahdo laga soo galiyay baa la yiraahdaa dabeetana aakhirkii meel masaajid lagu aasay imika masjid ar-ra's baa loo yaqaan masaajidku ninka madaxda ahaa uu ku aasay masaajidkii madaxa la yiraahdaa halka hadda xabaasha waa markii uu miya farqiin ka takhalusay buu wuxuu bilaabay inuu haddana boqor yaro kale agtiisa jooga oo magaalo Mardin la yiraahdo haysta inuu weerarka ku qaado Mardin markuu weerarka ku bilaabeen sidii caadada wahayd wuxuu u diray ergey ama rasuul waraaqihii tahdiidka ahaa iyo digdigta ahaana sida waa loo wargeeyay rasuulkii waa u yimi warkiina waa u sheegay meesha waxaa xukuma al-Malik Saciid nin la yiraahdo wuxuu jawaab ku soo bixiyay jawaab ah waan dagaalamayaa laakiin sababta dagaalka ku kaliftayna ay ku qoran tahay wuxuu leeyahay kuntu qad azimtu ala at-ta'ati wal hudur ila al-malik لكن حيث أنكم قد عاهدتم الآخرين ثم قتلتموهم بعد أن اطمأنوا إلى عهدكم وأمانكم فإني الآن لا أثق بكم وإن القلعة بحمد الله تعالى مشحونة بالذخائر والأسلحة ومليئة بالرجال الترك وشجعان الكرد حقوق بقبي هروحا كتلقى ليبويري inaan boqorka u imaado oo aanu hogaansamo laakiin waxaan arkay buu yiri cidii idin hogaansatay ee idan aqbashay iyagana inaan layseen oo idan amaano iyo ahdi toona lahayn sida daraadeed kalsooni ma qabaan kuugu imaado ee waxaan ku sheegayaa qalcadaydu rag iyo xoolaba waa buuxda oo rag tiro badan oo Turkiya iyo geesiyaashii kurdida ayaa ii jooga buu yiri dagaal baaran ka xiga imaatinka